waxyaalaha soomka buriya inaan wax ka ogaano sababtoo ah waxaa dhici karta qofku inuu isleeyahay waa dadaashay soom fara badan ayaad ilaahay ugu dhowaatay haddana soomkiisii uusan ahayn soom sharcigii islaamka waafaqsan uusan ahayn ee soomkiisii oo dhanba hadduusan sharcigii islaamka uusan waafaqin uusan wax ajira uusan ka helin oo waajibkii weli lagu leeyahay oo qof waajibkii gutaba uusan noqonaynin waxaa loo baahan yahay marka qofku haddii xataa soomkii kitaabkii isagu hadduusan ka akhriyi karin oo qof aayaddii iyo xadiiskii iyo kutubtii fiqhiga akhrisan kara hadduusan ahayn waa inuu dhowr siminaar ama dhowr muxaadaro waa inuu ka dhegaysto waxyaalaha burin kara soomkiisii si cibaadadiisi ay u noqoto cibaado saxan sababtaa waxaa jiray xadiis imaam axmed iyo kayrkiisuba ay warinayeen min xadiisi xudayfa bin اlyamaan saxaabigan la yidhaha xudayfa bin اlyamaan ayaa agtiisa waxaa ku tukaday ninkii markuu salaaddii ka baxay ayuu u yeeray wuxuu yidhi imise sano ayaad salaadan tukanaysay oo qaabkan aan u arkay imise sanoad salaadda u tukanaysay wuxuu yidhi 40 sano 40 sano ayaan sidan salaadda u tukanayo yidhi wuxuu yidhi low mita calىa gayri fitrati muxamed salى اllahu wslm wbaaraka calayh haddaad saan ku dhiman lahayd diin la-aanaad ku dhiman lahayd uu yidhi bal salaad inaad tukato iska daay sababtoo salaadiisii arkaantii ayuusan ninkaasi saxaynin arkaantii tiirarkii salaadda ay ku ansixi lahayd ayaa qaybu ka maqnayd 40 sanuuna salaaddii tukanayay xudayfa binulyamaanna wuxuu yidhi salaad la-aan iyo diin la-aan ayaad ku dhiman lahayd uu yidhi macnaha aanu kala jeedno xadiiskaa waxaa weeye 40 sano haddaad soo soomaysay laakiin soomkaagii uusan sharciga waafaqsanayn waxaad dhimanay soon la-aan adigoon soomin oo kale ayay la mid tahay kow markaa waxaa muhima qodobada aanu isku baraarujinayno niyadu waxaa weeye waxyaalaha daruuriga ah ee soomka laga maarmaanka ah ay ku ansaxayo ay kow ka tahay niyadaas weliba dadka qaar ayaa waxay u haystaan habeenka ugu horeeya in 29 maalmood ama 30 maalmood hal mar la wada niyeysanayo si duuduuba ma jirto taas habeen walba waa inaad niyeysatid xalay waad niyeysatay inaad berri soomayso caawa niye cusubaa lagaa dooni haddana leannu xadiiskii abu daawuud iyo kayrkii ay warinayeen nabiga salى اllahu عalيه wasalam wuxuu ku yidhi man lam yubayit الsiyaama falaa sawma lah man lam yubayit anniyata falaa sawma lahu qofkii niyada aan bariisiin oo habeenkii aan niyeysan soom kama ansaxayuu yidhi nabigu salى اllahu wslm wbaaraka calayh marka habeenkii markii ilaahay ku gaarsiiyo niyeyso berri inaad soomi kartid berri inaad soomi doontid waa inaad niyeysatid haddii niyada aad ka tagtid soomkaagii ma ansaxayo nabigeenana salى اllahu wslm wbaaraka calayh xadiiskii bukhaari iyo kayrkii ay warinayeen wuxuu ku yidhi inama alacmaalu biاnniyaat acmaasha oo dhan waxay ku ansaxayaan niyo salaadii niyo u baahan tahay soomkii niyo u baahan yahay zakadii xajkii camal cibaadaha oo niyo la-aan ansaxaya ma jiro taasi waa daruuri markaan u soo daadegno marka waxyaalaha mubdilaatu soom ama soomka burinaya kow waxaa ugu soo horeeya kullu maa dakhala fii jawfi اlinsaan wax walba ee gudaha u dhaadhaca ee jirkaaga gudaha u gala soomka waa burinayaan waxay doonaan ha noqdaan cunto iyo cabid ayaa kow ka ah waxaa kaloo la mid ah tusaale ahaan dhakhtar ayaa daawo kuu soo qoray goojo sankii ayaad isaga shubtay adoo sooman soomkaagii wuu buray dadka qaaraad waxaad arki dhakhtaray u tegayaan daawo isaga soo qorahayaa daawadii waxay ku leeyihiin sheekhow maniga afka ka cabay sharabo ma ahan waxaan afka kama aanan cabbin dhegtan ka qaatay sankan ka qaatay sheekhow anu waxna ma cunin waxna ma cabbin keliya meelaha furan oo jirkayga ka furan unbaan wax isaga shubay
maxay dhib leedahay ayay ku leeyihin waa khatar waana cilmi la'aan waa inuu qofku ogaado wax walba oo jirka gudihiisa gala ee u dhaadhaca soomkaaga waa burinayaan ama afkaad ka qaadatay ama goojaad dhegta isaga shubtay ama sankaad isaga dhibcisay goojo ama bawaasiiraad qabtay markaasaad dabadii meeshii dabadu ay ka duleeshay ayaad daawo isaga dhibcisay kullu hada mubtil